Pep Guardiola ayaa ka shaqaynaya qaladkii uu galay isagoo ciyaartoyda uu ka diray kooxda ay ku noqdeen kuwa awood badan la soo baxo marka ay timaaday isaga maxaa ku dhacay Pep Guardiola gurigiisa ayaa ay ugu badisay kooxda Tottenham si walba ay noqoto ciyaartoyda uu ka diray kooxda waxay tuseen awoodda ay u leeyihiin inay si maamuli karaan kubadda cagta ugu horeyn De Bruyne ayaa kulankiisii ugu horeeyay Napoli u saftay Italia laakiin qofna ma filaynin waxa uu sameeyay kulankiisii ugu horeeyay Guardiola ayaa u maleeyay in De Bruyne ay dhamaadeen waayihiisa kubadda cagta wuxuuna kansalay qandaraas cusub haddii loo bandhigi lahaa ciyaaryahankan laakiin kulankiisii ugu horeeyay Serie-da wuxuu dhaliyay Napoli laad xur ah oo cajiib ah isagoo qof walba ku qiyaamay taasi waa wax caadi ah maxaa yeelay xidigani waa Kevin De Bruyne laakiin Grealish ayaa sameeyay saameynta ugu weyn toddobaadkan Premier League Pep Guardiola waxa uu maleeyay inuu san caawin doonin xidigani wuxuuna amaah ku siiyay Everton laakiin kulankiisii ugu horeeyay ee uu ku soo bilowdo ayaa uu laba gool caawiye ka ah kulankii Brighton ay ka badisay kooxdiisa oo laba gool Eber ay kaga badiyeen waxa uu cadeeyay Grealish markale inuu yahay xidigii Aston Villa laga arki jiray oo uu san ahayn xidig rabooda Pep Guardiola waa uu ka shaqaynaya xilligan dirista labadan ciyaartoy oo saameyn weyn ku yeelatay haddaba haddii aad diibato aragtidaada De Bruyne saameyn weyn ku yeelanaya sanadkan ka tagistiisa kooxda Manchester City mise waa caadi saaxiibadaad nagu cusub tahay nagu soo biro buuxi sharuudaad nagala mid noqon kartid muuqaalka saaxiibadaada la wadaag si meel leer uu gaaro